السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتك وحلان جنة الكاميرا كلا سود وهذا ما أنتوا سبتي وأنا لبضة بش شناد ماي سنة كلبضة كون هي اللحية لباتنك. وقال كان وحربا إن النذي كله وذاقه مدحوين ترام وحدوكتهن مركا قار مركو مالها قطبت كجيدين أيوه إساقونا الصومالية يوليبا إلا حان أن أفلقا دينين مجوغي كرو مركلة أي حدنا أرنتاسي شلي إساقو شد كسعودة قبل كفلوريدا كهدليي وإلهان أفلقا ديي dalkeeni Soomaaliyana aflagaaday arintaasi waan idinla wadaagaya mid kamid ah diyaaradaha tikidhada raqiiska lahaa ee Mareykanka shacabku ay raaci jireen oo saaka aroortii gabi ahaanba shaqadii joojisay iyadoo labadii toddobaad ee la soo dhaafay ay dawladdu isku dayeysay in ay badbaadiso oo lacag fara badan ay siiso haddana ma aysan suura gelin shidaalka diyaaradaha oo cirka isku sii shareeraya xirnaasaha marinka Hormuz iyo dagaalka uu Mareykanku kula jiray Iran darteed ayaana diyaaradaasi ay gabi ahaanba shaqada ay u joojisay haddaba diyaaradaasi maxay tahay shacabkii tikidhada ka jartay maxay sameyn karaan imise jeer ayaa hadda ka hor ay shirkadaasi qarka u fuushay in ay musallafto waan idinla wadaagayaa arrimahaasi oo idil iyo diyaaradaha kale oo hadda doonaya dadkii tikidhada diyaaradaasi ka goostay in ay caawiyaan isla markaana tikidha raqiisa ay siiyaan haddaba arrimahaasi oo idil ayaan idinla wadaagayaa balse marka hore soo dhawaada xaj mabruuq salaam group xajka sanadka waxay idin haysaa hoteello u dhow labada xaram Maka iyo Madiina loogana lugayn karo gaadiidka ku soo booqan doonto goobaha muqaddaska ah wuxuu jeenta waalidka oo geeriyooday aan awoodin iyo umreynta haddii aad tahay qof qaba baahi khaas ah waxa aan ka caawin doonaa gudashada acmaasha xajka fadlan wac WhatsApp number eber 96559928475 mahadsanidin waalidiinta Soomaaliyeed ee jecel waxbarashada waxa la ogeysiinayaa looguna bishaaraynayaa in maxadka waxbarashada ee Somali Islamic Online oo ku hayo barnaamij waxbarasho diimeed ah oo ka caawinaya in adiga iyo ilmahaaguba aad si fudud u barataan quraanka iyo culumta shareecada maadooyinka dugsiga laga baranayna waxa ka mid ah quraanka hikaada ahadiista ducooyinka tarbiyada asaasiga ah ee ilmaha tafsiir iyo qaybaha kale ee culumta shareecada qaabka waxbarashada dugsigaanina waa hab online ah oo waxbarashada aad ku qaadanaysan waxaad kala xiriiri kartaa gmailka iyo lambarada shaashada kaaga muuqda madaxweyne Trump waxaan ognahay ilaa iyo 4 sano hore oo xilka hayay iyo hadda ku dhawaad sanad ka hor markii uu xilka qabtay waxa uu aflagaadeynayay dalkeena Soomaaliya waliba xildhibaanada kaliya ee Soomaalida ah ee ku jirta Congress-ka Mareykanka Ilhaan Cumar Trump oo shalay ka hadlayay shir Florida ka dhacay oo looga hadlayay in wax canshuura laga qaadin social security la siiyo dadka howlgabka ama dadka waaweyn ayaa mar kale dalkeena Soomaaliya aflagaadeeyay Ilhaan si xun u caayay Trump marka hore horta amaan ayuu ku bilaabay wuxuu yiri dal qurux badan oo Soomaaliya la yiraahdo ayaa jira marka waxaan idinku la talin lahaa inaad soo booqataan arintaasi markii hore waxa uu u muuqdaa inuu si wanaagsan ku bilaabay oo dalkii uu amaanayo leeyahay waa dal qurux badan ee bal hala soo booqdo hala soo fiiriyo laakiin hadaladiisii lagu yaqiin ayuu gadaal ka raaciyay uu leeyahay dalkaasi waa dal aan bajirin oo kulay haddana la soo booqdo ku dhahay waa dal aan military lahayn aan dawlad lahayn isla markaana waxa kaliya ay leeyihiin ayuu yiri waa musuqmaasuq iyo sidoo kalena in pollution wasaq aad u fara badan ay halkaasi ka jirto laakiin wuxuu yiri xildhibaanad Ilhaan la yiraahdo ayaa ka timid wuxuu yiri iyadoo wadankaasi ka timid ayaa waxay doonaysaa inay anaga wadankeena sidii aan u maamuli lahayn ay noo sheegto waxay leedahay yiri dastuurku xuquuqdaas oo siinaya waliba isagoo si xun ugu dhawaaqaya muuqaalkiisa ay arki doontaan xuquuqdaasi ay dastuurka siinaya waa in xuquuqdaasi la isiiyo arintii been abuurka ahayd ayuu mar kale soo celiyay oo ahayd in ay walaalkeed guursatay arintaasi oo hadda dawladdu ay sheegayso inay baarayso laakiin arin cad aan ahayn oo dawladdu ay meel been ah ay sheegayso ama Trump iyo mas'uuliyiinta isaga gulihiisa wasiirada ay leeyihiin arintaasi baaritaan ayaan ku sameeynaa laakiin haddii ay jirto mar hore ay arintaasi baaritaan ku sameyn lahaayeen oo ay soo ogaan lahaayeen waxaan ognahay Ilhaan inay qaxooti ahaan wadanka ku timid iyadoo yar isla markaana ay halkan wax ku baratay sidoo kale Ilhaan Cumar waxa jirtay bishii hore in tire lacagaha la igu sheegayo 30 milyan ka badan in aan haysto waxba kama jiraan qofku sanadku markuu dhamaado canshuurta uu xareynayo waxa jirta lacagaha soo galay inuu sheego iyada iyo hadda ninkeeda waxa la leeyahay ganacsiyo fara badan oo
shirkad qamri iyo waxaas ayuu leeyahay marka waxa ay tiri qalad dhinaca xisaabta ayaa dhacay marka lacagteedu inay $100,000 ka yar tahay oo 80,000 ilaa 95,000 ay u dhaxayso ayay sheegtay oo qaladku dhinacaasi uu ka yimid marka Trump arintii ayuu soo qaaday wuxuu yiri bishii hore ma aragteen in ay tiri lacagta 38,000 oo la igu sheegayo ma haysto lacag 80,000 ka yar ayaan haystaa oo qalad dhinaca xisaabta ka yimid ayay arintaasi ahayd marka wuxuu yiri dadkan Soomaalida ah waxa oo kaliya ay yaqaanaan wuxuu yiri waa khiyaano iyo musuqmaasuq marka waa inaan wadankeena dadkan aan ka saarnaa marka Ilhaan ayuu sidaas u caayay dalkeena Soomaaliyana bilowga amaan ayuu ku bilaabay yiri wadan qurxanaha la soo fiiriyo markii dambana wuxuu yiri musuqmaasuq iyo dil iyo wasaq kaliya ayaa ka jirta marka waxaanu ku tilmaamay dal aan dawlad lahayn military aan lahayn aan waxba lahayn haddaba waa kan Trump oo shirkaasi ka hadlayay iyo sidii Soomaaliya iyo waliba Ilhaan uu uga hadlay Look at the wonderful country. It's a beautiful country. You should try it sometime. Somalia. It's a beautiful place. It's got no government. It's got no military. It's got no anything. It's got one thing that's really strong, crime. It's got a lot of crime. They have no police. All they do is run around shooting each other. It's filthy dirty, disgusting dirty. It's a horrible place. They come here and Ilhan Omar, you ever hear of her? She heads it. And think of it. They have nothing but crime, poverty, pollution. Everything is horrible over there. Nothing good. They say it's the worst country anywhere in the world, that we got some beauties out there, but it's the worst. And then she comes here from Somalia, and she tells us how to run the United States of America. She says, the Constitution gives me certain rights. Gives me certain rights. And I demand that I be given these rights. Get the hell out. What a phony. And then she married a brother to come in. I don't know, you're not. But I would imagine they're looking at her. I have nothing to do with it. I would imagine. Of course I have nothing to do. I have nothing, but I believe she married her brother, which is totally illegal. Isn't she despicable? I can't stand watching her. I can't stand. Did you see last month, she accidentally checked the wrong box. It said she was worth $38 million. And law enforcement came after her for that. And then all of a sudden she was worth less than $80,000. And she said it was accounting. It was an accounting error. That was not a very good accountant, was it? Huh? No, their whole life is based on fraud and a scam. The whole thing is a scam, and we ought to get those people the hell out of our country. dhinaca kale waxa la leeyahay dhaqaalaha wadanka Mareykanka burbur miyuu ku dhow yahay wasiirka dagaalka ama wasiirka gaashaandhigga oo Congress-ka toddobaadkan ay su'aalo weydiinayeen waxa uu sheegay dagaalka Mareykanku kula jiray Iran in $25 bilyan ay ku baxday laakiin lacagtu waxa la leeyahay intaasi waa iba ka badan tahay sidaas darteed 60kii maalmood oo madaxweynaha awood uu loo siinayay dastuurku in dagaalkan uu sii wadi karo shalay ayay ku ekayd laakiin wasiirka dagaalka markii Congress-ku ay su'aalo weydiinayeen waxa la yiri Congress-ka ogolaasho ma soo weydiisanaysan marka wuxuu yiri labadii toddobaad oo xabad joojinta ay jirtay nalooma xisaabinayo Trumpna sidoo kale waxa uu yiri wax ogolaashaha ugama baahni Congress-ka sidaas darteed hadda waxa laga yaabaa in weerar kooban uu Mareykanku ku qaado Iran oo aan la ogeyn xilliga uu noqon doono maxaa yeelay Khamiistii ayaa gulihiisa amniga qaranka xitaa taliyaha saldhigga dhexe ee Mareykanka uu ka mid yahay ay ka soo qayb galeen waliba hub aysan wali horay Mareykanku uusan u isticmaalin ayaa laga yaabaa inuu isticmaalo sidaas darteed arinta dhaqaalaha hadii aan soo laabto diyaarad la yiraahdo Spirit Airline oo kamid ah diyaaradaha dadka shacabka qaada isla markaana lagu yaqaano diyaarad tikidkeedu uu raqiis yahay ayaa labadii toddobaad ee la soo dhaafay dawladdu waxay isku dayeysay inay badbaadiso waxay dawladdu doonaysay lacag $500 milyan inay shirkadaasi diyaaradaha siiso 90% milkiyadda ay dawladdu ay yeelato laakiin arintaasi waa la isku afgaran waayay marka diyaaradda Spirit Airline oo lagu yaqaanay in midabkeedu uu ahaa jaalle isla markaana magaceedu oo Spirit oo madow ah uu ku buufsanaa dusheeda ayaa xalay 9 saac markii ay ahayd gabi ahaanba shaqada joojisay diyaaradii ugu dambeysay oo rakaab sido oo Spirit ah xalay 6 saac iyo 17 daqiiqo oo habeenimo markay ahayd ayay waxay ka degtay garoonka Dallas Fort Worth ama DFW oo ku yaala gobolka Texas xitaa waxa la maqlayay towerka oo diyaaradaha laga hago oo dhahayo
waan ku faraxsanahay muddadii aan idila shaqaynayna iyo bayloodyada kale oo u tacsiyeynaya bayloodada diyaaraddaasi waday marka waxay weydiiyeen ma diyaarad kale ayaa idinka dambaysa markaasi waxay yidhahdeen waxaan rumaysanahay diyaaraddan inay tahay tii ugu dambaysay oo spirit ah oo soo caga dhigata oo dad shacaba sido marka diyaaradda websitekeeda ayaa waxa ay dadkii tikidhada ka jartay ay ugu baaqday inaysan garoomada tagin islamarkaana ay raadsadaan wadooyin kale oo ay ku safri karaan sidaasi darteed gabi ahaanba xalay 9 saac ayay shaqada joojisay marka diyaaraddan Spirit Airline tikid raqiis ayaa lagu yaqiinay islamarkaana dad fara badan ayay qaadi jirtay hadda sanadkii 2024 November diyaaraddan mar ayaa waxay xareysay Chapter 11 bankruptcy wax la yiraahdo oo ah diyaaraddan in ay musallaftay sidoo kale March bishii 3 2025 haddana mar kale ayay waxay ka soo baxday in musallafaadii bishii Agosto ee sanadkii 2025 haddana mar kale Chapter 11 ayaa xareysay bankruptcy hadda bishii February ee 2026 ayaa marka arrintaasi heshiis laga gaaray kadib markii sicirka shidaalka uu cirkaasi isku shareeray bishan May oo maanta labada ah 2026kana diyaaradii markii ay dawladda ka waysay lacagihii ay 500 milyan ahayd diyaaradii waxay ku dhaqwaaqday inay shaqadeeda joojinayso haddaba marka dadka tikidhada ka jartay hadii aad Soomaali ay jirto tikidhada ka jaratay tikidhkaada ha cancelin isla markaana hadii aad kaarkaada credit cardka aad ku jaratay dispute kale isla markaana sheeg in lacagtaadi waa lagu soo celinayaa hadii aad sidoo kale debit cardkaada aad ku jaratay waa sidoo kale hadii tikidkaada uu caymis kugu jirayna sidoo kale lacagtaadi waad helaysaa laakiin hadii kaararka ay shirkadu bixiso ama dhibcaha marka qofku uu ticket jarto oo diyaaradda raaco uu helo aad ku jaratay tikidkaada laguma soo celinayo marka diyaaraddan dad fara badan ayaa ku safray hadda bishan May aynu ku jirno 1.65 milyan oo qof ayaa tikid ka jaratay oo diyaaraddan inay raacaan ay ahayd waxa sidoo kale jirta in 1.7 milyan wadanka gudihiisa bishii February ee la soo dhaafay ay diyaaraddaasi ay ku safreen marka waxay mid ka mid ahayd diyaaradaha ugu waaweyn ee Mareykanka gudihiisa dadka shacabka isaga kala gudbiya wasiirka gaadiidka Sean Duffy ayaa shir jaraa'id qabtay isla markaana ku dhawaaqay in diyaaradda Spirit Airline gabi ahaanba shaqadii ay joojisay waxana uu sheegay in dawladdu ay isku dayday inay badbaadiso laakiin aysan u suura galin waxana ugu baaqay dadka tikidhadu ay u jarnaayeen in ay la xiriiraan diyaaradaha ay ka mid yihiin JetBlue American United iyo waliba Southwest iyo Delta kuwaasi oo tikidho raqiis ah oo $100 ilaa $200 oo one way ticket ah u ogolaan doona dadkii diyaaraddaasi tikidhadu ay uga jarnaayeen in ay ku safraan This morning at 3 a.m., Spirit Airlines ceased operations. So what that means is Spirit does not have airplanes in the air flying as of this morning. Also, their call centers are closed and they don't have staff at ticket counters. So if you have a flight scheduled with Spirit Airlines, don't show up at the airport. There will be no one here to assist you. What Spirit Airlines is now going to do is go through an orderly liquidation process. We'll see how that develops over the course of the next several days. But for customers of Spirit, I want to give information on how you can navigate this situation that you now find yourself in. And President Trump, Administrator Bedford, and I have been working with the other airlines across the industry in anticipation that this morning may happen. And so if you're a customer, many of the airlines that are not Spirit are stepping up to provide you assistance. So United, Delta, JetBlue, and Southwest are capping their ticket prices for Spirit customers. It's going to vary between the airlines. You have to go to their websites to take advantage of these special offers. It is normally going to be about $200 for a one-way ticket. You'll minimally have to provide to the airlines that you're now going to book with your Spirit confirmation number and your proof of payment. marka arrintan waxa la leeyahay marka dadka dhaqaaleyahanada waxay bilow u tahay dhaqaale burbur Mareykanka ku soo wajahan dagaalkan marka hadii uu bishan inta ka dhiman uu sii socdo marinka Hormuzna uu sii xirnaado xitaa waxa la leeyahay diyaarado fara badan ayaana dooli doonin maxaa yeelay sicirka shidaalka ee diyaaradaha ayaa waxa uu isku sii shareeraya cirkaasi Yurub waxa la leeyahay diyaarad duusha lama heli doono hadii ilaa iyo dhamaadka bishan marinka Hormuz uu sii xirnaado sidaas darteed ayaa hadda Mareykanka waxa uu raadinayaa isbahaysi wax ka qabta marinka Hormuz xitaa hadii dagaalkan uu dhamaado waxayna ugu magac dareen Maritime Freedom
construct waxa ay leeyihiin waxa aan doonaynaa wasaaradda arrimaha dibadda iyo saldhigga dhexe ee Mareykanka ee Setcom in arrintan ay iska kaashadaan isla markaana dhinaca sirdoonka la iska kaashado dhinaca diblomaasiyadda la iska kaashado iyo sidoo kalena in cunaqabatayno ay soo rogi karaan ururkaasi isbahaysiga in ay sameeyaan marka waan arki doonaa arrimahan iyo waxyaabaha ka soo kordha laakiin mid ka mid ah diyaaradihii rakaabka Mareykanka u kala gudbin jiray Spirit gabi ahaanba shaqadeedii xalay 9 saac ayay joojisay diyaaradeedii ugu dambeysay oo rakaab sidana xalay 6 saac iyo 17 daqiiqo ayaa garoonka DFW oo gobolka Texas ay ka degatay marka waan arki doonaa arrimahaasi iyo waxyaabaha ka soo kordha asxaabi aad iyo aad u mahadsantihiin intaan mar kale kulmi doono waa saaxiibkiin cilmi waro idin la sida iyo nabadgelyo